من ربك؟ ما دينك؟ ما كتابك؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من عدوك؟ الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى آيات القرآن كريم في سورة الأحزاب إلهي وحو نفري سبحانه وتعالى إن النبي عليه الصلاة والسلام كصلنا صلي النبي قيمه سوء الله ندرسين يا الله وحوري سبحانه إلهي ملائكتي سوى كصلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلي إلهي النبي كصلي وثناؤه عليه ورحمته عليه، وإنه الله أمانه أمأه حريصه. لما معنى أيو لي صلقوا مركو كيما دو إلهي حقيس سبحانه وتعالى، وأمان إلهي وأمان أدون كيسة، يا رحمة إلهي وأن حريصته أدون كيسة. مركا ملائكته ويؤدوا عيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله نوى أمانا أو أن حريصته إذ كنا نبيك كصلي صلى الله عليه وسلم وقد دعي إلهي وأمانه أو نحرسته. وحق صار في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله حول وحي لكل مي كعب بن عجرة صحابي جليل كعب بن عجرة مركز وحي يقول: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حول كعب بن عجرة ardaygiisii taabiciga ahaa cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa uu la kulmay. markaasaa wuxuu ku yidhi:
makuu hadiyeeyaa hadyad qaali ah maku siiyaa waxaa nagu soo baxay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam maalin markaasaanu ku nidhi yaa rasuula allah waanu garanaynaa sidaanu kuu salaanno sideenu kuugu sallinaa rasuulkii allow wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaan allahuma salli calaa muxamed ilaahu nebi moxamed u naxariiso oo ammaan sidaad ugu iyo ehelka nebi moxamed saad ugu naxariisateed u ammaantay ibraahim iyo ehelkiisii ilaahu nebi moxamed iyo ehelkiisaba barakee saad u barakaysay ibraahim ehelkiisa inaka xamiidun majiid waxaad tahay alla la mahadiyo oo maxmuud ah oo majiid ah oo la weyneeyo salaadan iyo salligani waa afdalu salaa cala nabiy sala allahu alayh wasalam salliga ugu fadliga badan lee nebiga lagu saliyo weeye sala allahu alayh wasalam salaatu libraahimiya ayay culammadu yaqaanaan salliga nebigu walaalayaal fadaa'il iyo faa'iidooyin badan buu leeyahay waxaa ka mida fadligiisa iyo faa'iidooyinka salliga nebiga calayh salaatu wasalaam inaad ku hesho waxa weeye shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ruuxa yidhaahda markuu aadaanka maqlo allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila alwasiilata walfadiila wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadtah xallat lahu shafaacatii qofka ducada ay akriya baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ducadaa waxay dhahan culammadu allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamed salliga nebigaa ku dhex jira sala allahu alayh wasalam maxaa yeele nebiga magaciisii baad soo qaaday sala allahu alayhi wasalam shafaacadeedaa xalaal u noqonaysa baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayhi wasalam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay ruuxa nebiga mar qura ku salliya ilaahay 10 goor buu ammaanaa ama u naxariistaa subxaanaه wa tacaala waa ka nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya mara sala allahu biha calayhi 10 ninka mar qura igu salliya ilaahay 10 goor buu ammaanaa oo uu subxaanaه wa tacaala u naxariistaa salaada ilaahay waa ammaan uu ammaano addoonkiisa ama raxmad addoonkiisa uu naxariisto culammadu xadiidka markay sharxeen waxay yidhaahdeen aljazaau min jinsi alcamal abaalgudku camalka noociisa oo kale weeye waayo mu'minku isagaa nebiga u duceeyey ilaahay buu uga baryey inuu allah ammaano nebi moxamed oo u raxmadeeyo allahna wuxuu ugu abaalguday addoonkiisa inuu inta uu nebiga siiyey sala allahu alayh wasalam uu u ammaanay ee uu u duceeyey nebiga inuu ilaahayna abaalgud ku siiyo oo isaga uu ammaano 10 goor ama 10 goor ilaahay uu naxariisto subxaanaه wa tacaala waxa weeye waa fadli aad iyo aad u weyn ruux allah uu ammaanay ama allah subxaanaه wa tacaala uu naxariistay waxaa ka mid ah fadliga salliga nebiga calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku salى اllahu alayhi wعalى aalihi waصaxbihi wasalam waxa uu yimid ubaya ibnu kacb markaasaa nebigu wuxuu sheegay xadiid nebigu saxaabada ayuu yihi dadow ilaahay xusa oo ilaahay xusa jaaءat الraajifa tatbacuha الraadifa tii dadka dhulka la gariirinaysay oo qiyaamadaa baa timid suurtii qiyaamada waxaa ku xigta oo daba socota suurtii lagaga soo baxayay qubuurta tatbacuha الraadifa النفقة الثانية afuufidii labaad markaasaa wuxuu yihi ubay ibnu kacab waxaan ku ihi rasuulkii allow salaadayda intee in laeg baan kuu yeelaa ubay ibnu kacab wuxuu lahaa xilu ducaysto oo ilaahay u xiso markaasaa wuxuu yihi xilliga aan dikrigayga akhrisanayay adkaartayda intee in laeg baan xilligaa salaadaada u qoondeeyaa wuxuu nebigu yihi intaad doonto u qoonde rubuc haddaan u qoondeeyo ka waran wuxuu nebigu yihi wixii aad doonto weeye haddaad kororsatona way ku khayr badan tahay 3 meeloodow meel baan u qoondayn
haddaad kororsato way ka khayr badan tahay 3 meelood 2 meelood baan kuu qoondayn haddaad kororsato way ka khayr badan tahay waktigayga nus baan ku siin haddaad kororsato ka khayr badan gebiga waktigayga aan ducaysan jirayba salligaagaa ka dhigi buuri muxuu nebigu ugu jawaabay idan tukfaa hamuk wa yukfara laka dambuk haddaad sidaa yeesho 2 ballanqaad baan aniguna kuu ballanqaaday hamigaaga iyo murugadaada waa lagaa kafaynayaa oo ilaahay baa kaaga fillaan doona dembigaagana waa la dhaafi buu nebigu uhi calayh salaatu wasalaam ruuxa qalbigiisu cidhiidhyoomo hami iyo murugo dareema adduunyadu ay ku cuslaato nolosha adduunyadu ay ku soo cidhiidhyoonto ama ay ku ururtaa facalayhi bisalaati cala annabiy sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam salliga nebiga ha laazimo calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa hamigiisa ka laalaya oo ka kor qaadaya subxaanahu wa tacaala waana u dembi dhaafaya rabbi jalla fii culah waa 2 faa'iido aad iyo aad u weyn ruuxa salliga nebiga sala allahu alayh wasalam la yimaada ayaana fadliga noocaasi helaya sida uu wariyey xadiidka ubay ibnu kacab radia allahu tacaala canhu wa ardaah rasuulka sala allahu alayhi wacala aalihi wa saxbihi wasalam salligiisa faa'iidooyinka lagu helo waxaa ka mid a inaad noqoto qofka nebiga ugu dhow ee ugu mudan nebiga qofka ugu dhow xidhiidh ahaan ayaad ku noqon salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam xadiidka warinaya cabdillahi bni mascuud radia allahu canh wuxuu nebigu yidhi awlى الnaasi bi ywma alqiyaama akharuhum calaya salaata dadka waxaa iigu dhow oo iigu mudan inuu ila xidhiidho ruuxa salaada iyo salligiisu iigu badan yahay ayaa nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam rasuulkeenu wuxuu inoo sheegay salى اllahu alayhi wasalam ilaahay inuu u diray ama u xil saaray malag u sheega nebiga cid kastoo ku sallida calayh الsalaatu wasalaam ilaahayna jala wacalaa inuu u xil saaray malaa'ig arlada marta oo nebiga salى اllahu alayh wasalam salligiisa u qaybsan wuxuu nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam salligaad igu salliyaysaan badiya salligiina waa la ii soo bandhigayaa waxay rasuulkii allow sidee salliga iyaga lagugu soo bandhigi adiga oo lafa noqday oo baaliyoobay oo dhammaaday wuxuu nebigu uhi ina allaha xarama cala alard ina allaha xarama alard calى ajsaadi alambiyaa ilaahay wuxuu ka xarimay ambiyada jidhkooda ayaa ilaahay uu ka xarimay dhulku inuu cuno ayuu nebigu yihi calayh الsalaatu wasalaam markaa jidhkaygu ma dhammaan baa rasuulku yidhi salawaatu اllahi wa salaamuhu calayh sidaa daraaddeed waxaa ka mid a fadliga salliga nebiga iyo faa'iidooyinka laga helo ducada laga horaysiiyo salliga nebiga waa duco maqbuula ah haddaanu ruuxu la iman wax kale oo iskii uga mamnuuca oo isaga naftiisa ka yimid haddaanu la iman asbaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mid a salliga nebiga calayh الsalaatu wasalaam ninkii ducaysanaya rasuulku la kulmay wuxuu nebigu yihi cajila haada uu degdegay ninkaas waayo ilaahay ma ammaanin nebigana kuma salliyin markaasaa nebigu wuxuu yihi u degdegay ninkaas dabeeta nebigu saxaabadii buu la hadlo wuxuu yidhi hadduu midkiin ducaysanayo ilaahay ha ammaano oo ha mahadiyo dabeedna nebigiisa ha ku salliyo calayh الsalaatu wasalaam kadibna ha ku ducaysto ducooyinka wixii uu rabo ee uu doonayo marka ducada salliga nebiga laga horaysiiya salى اllahu alayhi wasalam waa mustajaaba biidni اllahi subxaanah ilaahay idamkii waa mustajaabah oo waa mid la aqbalayo wey waa inaad arrinka noocaasiya aanad u daymo la-aan oo aanay waxa weeye ku seegin fadaaisha iyo fawaa'idda salliga nebigu leeyahay salى اllahu alayhi wasalam aqulu ma tasmacuun waastagfir اllah alxamdu lilahi calى ixsaanih والشhكر lh عlى توفيqه وامتinاaنه وأشhهد أن لا إلaه إلا الله تعظيما لشأنه وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال صلق النبي حليضا وقفضلق بدنيا وحكمدا هبينك جمعة سوق ليس يمان انت جمعة والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة مالمه نفضلق بدن وحكمدا جمعة فأكثروا فيه الصلاة عليه صلق عادي صلي يسان فربضية بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام قفكوا هبينك جمعة إلى مالك جمعة انتو دمان ايوه قبل كمان انت جمعة دعيسو ودعيو على هذا جمعة دعيسو صلق النبي انتو كقاضن كره هكقاطو انتو كردين كره هكرديو انتو فربضين كرنا هفربضيو محايا لي faa'iidooyinka aynu sheegnay ee faraha badan leh oo dhan baa ku jira qofku marka nabiga magaciisa uu maqlo waa inuu rasuulka ku salliyaa sallallahu alayhi wa sallam way nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam dad waxa uu bakhayrsan qof agtiisa la igu soo hadal qaaday oo magacayga lagu soo qaaday oo igu salli waayay baa nabigu alayhi salatu wasalaam qofka nabiga ku salli waayay markuu magaciisa maqlo rasuulku ducadii iyo habaarku jibriil habaaray nabigu aamiin buu yiri xadiidka saxiixa baa u daliila nabigu minbarka ayuu fuulay jaranjarada koowaad markuu xagta saaray nabigu wuxuu yiri aamiin jaranjarada labaad markuu saarayna wuxuu yiri aamiin jaranjarada saddexaad markuu saarayna wuxuu yiri aamiin markii nabigu salaadii dhamaystay sallallahu alayhi wa sallam saxaabadu waxay ku yiraahdeen rasuulkii allah maanta waxaanu ka maqalay waxaanan hore kaaga maqli jirin qala wa sami'tumuhu وميا مقليسين بان النبي قولي صلى الله عليه وسلم قالوا نعم نبي قول جبريل با إلى هذا وحانو يقول يدي الله فقيه والله هدليه قفك لبدي سوالد أكتي سويكو قبوبان أما متكمدي كو قبوبو عن شنة السبب تودا كو قلين مركزان آمين لبو النبي قولي الله هدليه وهفقيه قفك الله قصو عقا هذا مقعاقا ايكو قصو اللي ويبول جبريل نبي قول آمين باندي الله هدليه وهفقيه قفك رمضان وصو قشو iyadoo aan loo dambi dhaafina ay ramadaan ka baxdo baa nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam jibriil baa sidaa u habaaray nabiguna aamin buu yiri sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sidaa daraadeed salliga rasuulka ugu fadliga badan li waa kaynu sheegnay nabigu saxaabada u baray waxyaalo kale oo adigu aad samaysatay ama aad maxmashay salli nabi ma noqonayso waa in arinta aad iyo aad looga foojignaada salliga nabigu waa cibaado cibaadaduna waxa laga qaataa hadal ilaahay iyo rasuulkiisa salliga nabigu waa cibaado cibaadada waxa laga la kulmaa allah wa rasuuluhu cibaadadu wax la dhadhamiyo ruuxu wixii uu doono iska oranaya ma ama way la quman tahay ama sidana waligeeba ku soo watay adilasa bi cibaadadu waa qaala allah qaala rasuuluhu alayhi salatu wasalaam waxa laga yaabaa qofku inuu cibaado wuxuu moodayo ku daalo qiyaamahana faramarnin la diro waana khasaaraha ugu weyn نبي محمد نار انت وينوغدي عليه الصلاة والسلام والنبي محمد وحيره من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكن دين تيدا كسودرة وحان كمل أهين لقى أقبل ما يولغو علم النبي قولي ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفك كو عمل فلا إلي ماده عمل آشري علي ذا وافق سنين وانيقا آن ليقا كل من وأنيقو أنا الشيخين بو النبي قولي عليه الصلاة والسلام وعمل لقو علينا يبو رسولك قولي لقى أقبل مايو مركا الدنيا انت تشوكتا ويان جانيسك حسابتكو الدنيا انت تشوكتا ويان جانيسك هبسشدو والدنيا انت تشوكتا جانيسك وحبرشدو آخر هذا تكتوا حساب يا أبا المرين مجرى عمل سيدا دراد الدنيا هذه كل مان يا عمري قاقا يا وقت قاقو وحان شريعة النبي وافق سنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نيفي عن بانو قتشيني إلهي درادي با مركا يكلفتي عندنا حكا دوني مايو إلهي با حكا دوني وهذا المعان لكن عند الله قيمة كماله مرد النبي محمد قد خلافتي عليه الصلاة والسلام إلهي يكتس قيمة كماله مرد رسولك قد خلافتي عليه الصلاة والسلام وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وحي النبي محمد السيئ الدين قاتا وحي دين ديدنا كتغا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بو الله يراد القرآن وكله الله وحيره
هكدك تونادان كوا النبي محمد خلافة يا صلى الله عليه وسلم أمرك النبي قد شبينيا شريعة النبي قد قرب مريا هكبقان وهيسكا إلاليان هكدك تونادان إن يكون عداء الدنيا فتنة وحود أحمد بن حنبل آيات مركو فسره والشركي إن الشركي كل عان آخرنا عذاب كل أيه بطيستان وحلقا يابا إلا وحلقا وخلاف كان نبي خلاف دي شريعة ديسي الله إنو كمو حلقا عيال لغا يابا الله باشيغي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مركي اللي يحدين بو الله نسي اللي حيه سبحانه وتعالى مركي هداد عقت اللوة إلى طريقة الله سبحانه وتعالى دنكا جلي مايو هل الله هل كاتكو هل أكسميسو وكرسولك الشيخ صلى الله عليه وسلم عمل ولبوح اللي في الفرعون ابن نبي قولي لكل عمل شرة ولكل شرة فترة عمل ولبوح في الفرعون ابن لي في الفرعون ولبوح دال باك الدنبية قفكي دال كيسو كل ماضو كسو قبقبو بصنة هايقا وإليبان ابن نبي قولي قفكي صنة هايقا وحانا هين إيا طريقة هايقا وحانا هين وبدعاء كجبجبوبنا إلهي دنك مقلو توجه إيا الضوحة وكوها لأكسمية كودونها النهضة الله دنك مقلو سبحانه وتعالى عند الله كرامكم عليه نحيل النبي محمد قفك كرامين واي فليس عند الله بمكرم الله أكتي سنة ما عمل كرامين أيوه مركارك نوع الصيا وين الله ضيم الآن قفك عبادوينك وكد دالي وإنه بيه إن يوافق سنتهي النبي محمد طريقي عليه الصلاة والسلام إيا إنك له اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح شأننا كله يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا اللهم احفظنا واحفظ رجالنا ونساءنا وشبابنا وشيوخنا اللهم احفظنا واحفظ رئيسنا ووزراءنا وجيوشنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا أمة خير وبركة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو عقيدتنا أو أمننا أو قيادتنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا واحقن دماءنا اللهم ألف بين قلوبنا واحقن دماءنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ودمار يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقيامة